xaflad lagu taageerayay maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London. Xafladaas oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahan ku dhaqan waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada tan London. xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed oo ay horkacisay gudoomiyaha International Mother Association Qaali Beerlula. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa iyagu si aad ah u soo dhaweeyay maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu madaxweynaha ka noqday Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: waxa caawa aan ku faraxsanahay xafladan qiimaha badan ee loo sameeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliyeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah nin geesi ah oo dalkiisa iyo dadkiisa u soo shaqeeyay jagooyin badanna ka soo qabtay dalka Soomaaliya. Mudane Shariif waa nin ummadiisa sama bixi kara oo dhibaatada ay ku jiraan ka saari kara. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan ee aan ku taageerayno madaxweynaha saddexda gobol Shariif Xasan Sheekh Aadan. waxaan dhihi karaa Shariifka waa nin maaragtay aqoon aan u leenahay, waa nin codkara, waa nin maaragtay ismaha waddan ka soo qayb qaatay. marka waxaan leenahay waada siibteen bagaad waa siibteen. marka waxaan leenahay Shariif Xasan caawa adiga ayaa halkan ummadan ku soo banaan baxday. waxaan u soo banaan baxday in adigu magaca maanta lagu magacaabo ay ku taageerto. waxaan dadka abaabulan aan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh maarta waxa special jaaliyadda UK waajibaadka ka gudata halkan. waxaan leenahay saddexda gobol waxa lagu yaqaanaa dadka degan dad cadaaladda iyo nabadda ka shaqeeyo iyo horumarka Soomaaliya. sidaa daraaddeed Sheekh Shariif waxaan leenahay waa inuu ka shaqeeyaa cadaaladii dadkii in la soo celiyo nabadgelyadii iyo cadaaladii si loo gaaro dadkan horumarkoodii ay dib ugu soo noqdaan noloshooda ay dib u soo qabsan. waxaan hambaliyo iyo bogaadin leeyahay anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda oo dhan guushaas uu guuleystay madaxweynaha maamul goboleedka saddexda gobol. sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadnaqo dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan maamulka federaalka oo dhan. xafladan caawa mudanayaal iyo marwooyin waxaa loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo ama loogu dabaaldego dhismaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo doorashadii loo doortay madaxweynihii dowlad goboleedkaas Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. Shariif Xasan Sheekh Aadan asagoo kaashanaya waayo aragnimadii oo hor u lahay inuu ku dadaalo bal marka hore in dib u heshiisiin barnaamij ah oo ummadda Soomaaliyeed yacni qalbigooda loo midaynayo oo gacmaha la isu saarayo halkaasna ay ka dhaqan gasho nabadayntii Soomaaliya. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.